Nacaybka aan u qaaday waxaan isku dayi jiray mar walba inaan dilo, maraan isiraahdo meel kasoo tuur, maraan sunta jiirka isiraahdo u qas. Adduunka waxaan ugu nacay inankaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Maanta waxaan inooga sheekaynayaa qisadana waxay ku dhacday gabadh la yidhaahdo Muniira waxay tiri nin ayaan guursaday. Ninku waxay tiri nin Ilaahay hanti siiyey buu ahaa, aad iigu wanaagsan. Waxay tiri laakiin xaas hore ayuu lahaa. Xaaskiisan hore aniga waa igu ogeyd in uu i guursanayo oo waa u fasaxday, maasha Allah, gabadh wanaagsan bay ahayd. Waxay tiri anigana waa ogaa. Waxay tiri ninkan wuxuu lahaa guri 2 dabaqa. Dabaqa sare aniga ayuu i siiyey oo alaab aad u fiican ii dhigay. Dabaqa hoosena xaaskiisa weyn iyo 2 gabdhood uu dhalo yaryar oo markaa sanad iyo midna bila jirtay ayaa deganaa. Waxay tiri iyadana maasha Allah aad buu u jeclaa, gabadh ehlu diin ay ahayd. Teeda kale maba ahayn gabadhaad u weyn, aniga 1 sano ayay iga weynayd oo iyadoo aad u yar ayuu ninkani guursaday. Waxay tiri haddaba markuu i guursaday oo ilaa bil aan qabay, waxay tiri anigu waxay igu beermay nacayb. Halkii la rabayna xaaskaasi hinaasto, hinaasihii aniga ayuu igu beermay. Mar walba waxaan doonaa inuu ninkan ila joogo, waxaan doonaa in aanu waxaanu gabadhan u keenin aniga ii keeno. Laakiin bay tiri ninkaygu mar walba wuxuu ahaa mid nooc cadaalad sameeya. Hadduu dhag u keeno anigana mid buu ii keeni jiray, wax gooniyana midba ma siin jirin. Waxay tiri laakiin anigu kuma qanacsanayn. Waxay tiri markii wax yar guurkayga ka soo wareegay, waxaan waa inaad wiilka ninkan uur u qaataa aad inaanu dhashaa. Waxay tiri markaan wax yar joognay baa uur baan yeeshay. Uurkii 9 bilood ayaa la gaadhay. Waxay tiri 9 bilood intii lagu guda jiray xaaskana waa i caawinay, cunada ii karinay, gurigayga la shaqaynay, inakeen cabaar soconay bay odhanay. Waxay tiri laakiin waxaa soo dhan ima muuqdaan. 9 bilood markay dhammaatayna waan dhalay, laakiin waxaan dhalay gabadh. Waan murugooday. Waxay ninkayga waa arkay in aan anigu wax doonayo, yacni aan xaaskan yacni anigu xumaan igu jirto. Wuxuuna igu yidhi ha ka yaabin in aan idin cadaalad sameeyo. Wiil baad sheegtay, haddaad 10 wiil isku xijiso waxaan haynin anigu idin cadaalad falaaya. Waxay tiri xaaskii yacni maxay ahayd way caawin jirtay. 4 bilood ka bacdi dhalashadii inantayda waxaan damcay inaan isna wiil u qaado. inantaydii baa 4 bilood jirta. Hasbi Allah wa ni'mal wakiil. Waxay tiri uur baan yeeshay. Waxay aad baan u farxay. Markaa ninkaygu bay tiri ma ogolaan jirin in dhakhaatiirta la aado la soo ogaado waxa yacni caloosha ku jira wiil iyo gabadh iyo wuxuu yahay. Waxay tiri waxa dhacday in 9 bilood lagu jiro, laakiin xaaskii sidii ii caawinay maadaama aan naag uur leeyahay, ilmo yar 4 bilood ii jiifo. Waxay tiri mar walba waa caawisaa, ilmaha ila haysaa, guriga ila nadiifisaa. waxay tiri gabadh aad u wanaagsan, ehlu diin bay ahayd. waxay tiri waa aad baan yacni aniga tartan baa igula jiray inaan yacni la tartamo. 9 bilood markii la gaadhay waxaan dhalay gabadh kale. waxay tiri qalbigii baa i jabay oohin. waxay tiri odaygayga wuxuu yiri gabdhuhu waa barako, waa irsaaqad, waxba ha murugoon, anaa ku raba wixii Ilaahayna siiyay anaa ku qanacsan. waxay tiri 2 sano markii laga soo wareegay oo 2 gabdhoodaan haysto, iskaba ilaaway, niyadaydii ka saaray. yacni maxay ahayd maxaad u bahalkeynaysaa, maxaad ula tartamaysaa oo gabadhii aan isku wanaagsannahayo maalinba guri tagno. oo bay tiri farxad maasha Allah wixii iska ilaaway ayaanu hal mar aniga iyo gabadhii kale uur wada yeelanay. waxay tiri waxaan isleeyahay doorkana wiil baad sidaa. iyadu bay tiri waxba iguma tiraahdo oo aniga unba iska ka caawisa oo doorkana iyadii baa bada culus, marba guri baan iska tagnaa. waxay tiri markii la iska joogayba 9 bilood baa la gaadhay. 9 bilood ma la gaadhay. waxay tiri isku habeen baanu amarka Ilaahay foolanay. waxay tiri laakiin odaygayaga sidaan hore u sheegay ma jecla dhakhaatiirta. guriga ayuu islaana u keeni jiray ama dhakhtaradba, halkaasaan yacni lagu umulayaa. waxay tiri aad baan ugu xanuunsaday ilmahan dambe, waan sakaraaday, koomaan galay. fooshii waxaan soo miirsaday aniga
oo yacni dee aad u xanuunsanaya laakiin amarka ilaahay u mulay gabadhii kalena waa umashay. waxay tiri islaantii baa ila joogta markaa dhakhtaradda ahayd. waxaanan ku iri maxaan dhalay markiin sa usoo baraarugay ba waxay tiri inan yar oo tuwaal ku duwan bay gu tiri inantan ayaad dhashay. adduunkaba waxay tiri waxaan ugu nacay gabdho. waxay tiri waxaan ku iri gabadhii kale maxay dhashay? waxay tiri gabadhii kale maasha allah wiil bay dhashay. waxay tiri dhulkiiba waa ila wareegay. aad baan u cadhooday. waxay tiri inantaydii yarayd baan nacay. naas ma siinayo, uma dhowaanayo. waxay tiri stress caadi ah igu furmay. waxay tiri gabadhii kale maasha allah aad bay u faraxsan tahay. ilmaheedii bay iska haysataa. iska da ilma ay haysatay inantaydii iyadaa korinaysay. naaskii aanu diiday iyadaa siisay. inantaydii iyadii baaba la wareegto labada ilmo isku haysa. waxay tiri haddaba inanka yaraa baan adduunka ugu nacay. waa inuu inanka yara dhintaa. waxay tiri maalin baan ugu soo galay. waxaan arkay iyadoo kajada ku jirto ku mashquulsan inankii yaraana uu qolkiisa joogo. waan soo galay waxaan sariirta ka tur. waxay tiri markaan saa ilmi u qaaday baa yacni wax gudahayga ku jiraa in mamnuuceen oo igu dhahdeen may bay tiri damiirkeeda wali fiicnaaya. waxay tiri maalin kale waxaan siri sunsi laakiin ilaahay ma qadarin. dhowr markaan isku dayay waxay tiri waxaa kasoo wareegtay 12 sano inantaydii aan dhalay gurigaas u wareegtay. gurigaas qol laga siiyey. reerkaasay ku tirsan tahay inkastaanan kalaba maqnayn oo yacni guri kala sareeyay ku jirno mar walba isku imanayno. wanaagaayo waxaasoo dhanna xaaska weyn ay leedahay aniguse aan lay tusi karayn ayaa 12 sano 17 sano markii kasoo wareegtay baa waxay tiri odaygayga waxaa haleelay xanuun aad buu u xanuunsaday. waxay tiri odaygaygii baa noo yeedhay. wuxuu yidhi waan idinla dardaarmayaa. aniga waxa lagu yidhi dalka waxba lagaagama qaban karo idinmana kala kaxaysan karo. waxaan kaxaysanayaa walaalkay. caruurteyda waxaan doonayaa sidaa ay isku jeceshahay haddeer in ay isku jeclaadaan. waxay tiri way iska oynay aan ku raacno laakiin waana diiday. waxay tiri wuxuu igu yidhi sir ayaan idinka qarinayay. haye baa la yidhi waa maxay? wuxuu yidhi habeenkii aad yacni labadiina isku marka foolateen adigu Muniiray waxaad dhashay wiil. gabadhan waxay dhashay gabadhan waxa weeye gabadhii ka weyneyd Muniira yacni min weyntii iyadu gabadh bay dhashay. laakiin aniga ayaa idin kala bedelay waayo waxaan arkay inay xumaano kugu jirto. waxaan ogahayna buu yidhi Muniiroy haddii aad maanta wiilka haysan lahayd inaad adduunka ugu necbaysan lahayd walaalihii oo aan u soo dhawaadeen. marka aniga ayaa go'aansaday in aan idin kala bedelo. waxay tiri waan cadhooday misana meel laga qaylqayliyo ma joogo. odaygu waa xanuunsanayaa waa safar caruurtu waa wada joogtaa. waxay tiri inankayga waa soo kacay madaxuu iga dhunkaday. wuxuu yidhi hooyo adigu waad dhashay. waxay tiri wuu orday xaaskii weyneyd maxay tiri buu madaxa ka dhunkaday. wuxuu yidhi hooyo adiguna waad soo korisay sidaasi ka daran waa idin jeclahay. awalba sida waan idin jeclaa haddeer waan isii jeclaaday. waxay tiri waana runtiisoo waan ogahayoo haddii aan caruurta maanta inanka anigu aan korin lahaa sidaa iskuma jeclaadeen. waxay tiri odaygii maasha allah 2 sano kabacdi wuxuu ku soo noqday isagoo caafimaad qaba wadankiisii iyo reer ayaanagiibu noo soo noqday. caruurtii maasha allah qaar waa guursadeen qaar waa shaqeeyeen. waxay tiri nimco ayaan ku noolayn. laakiin bay tiri waxaan aad uga naxaa ugana murugooda markaan xasuusto dilkii aan u geysan lahaa inankan. ka warramo waa inankaygii misna waxaan doonayay in aan dilo dariiqad kastana waa u maray. xasbiya allah wa nicmal wakiil. waa nacaybka iyo xiqdiga. halkaa ayayna qisadeena ku dhammaatay. waan rajaynayaa inaad ka heli doontaan qisadan. channelka subscribe saara bambaleelka furta fiidiyoyadana like saara. muhiimadda qisadanina waxa weeye weligaa ha isku dayin xumaan inaad samayso waayo waa mid adiga kugu maqan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.